laba haween ah baa garsoore u yimid. Ibn Abi Layla baa la oran jiray, waqtigiisina aad bay dadka u yaqaaneen. Qaaligii baa weydiiyey, labadiina yaa su'aasha bilaabaya? Midkood baa tiri, adiga bilow. Tii koowaad waxay dhahday, xaakimow, aabbahay wuu dhintay, tani waa eedaday. Waxaan ku dhahaa hooyo, maxaa yeelay way isoo koriday, wayna i kafaalo qaadday ilaa aan ka weynaado. Markaas kadib waxaa yimid wiil adeerkay dhalay, wuu iga doontay, wayna ii guurisay isaga. Eeddo gabar bay dhashay, way kortay gabadhii. Waxay eeddo u soo bandhigtay ninkayga si uu gabadheeda u guursado. Markay aragtay 3 sano inuu dhaqan wanaagsan ii muujiyey, gabadheydii bay u soo qurxisay ninkayga si uu u arko. Markuu arkayna wuu ka helay. Waxay eeddo ninkayga ku tiri, gabadheyda waan kuu guurinayaa, laakiin hal shardi, waa inaan anigu naagtaada koowaad go'aan ka gaaro. Wuu ka aqbalay shardigii. Maalintii arooska ayay eeddo ii timid, waxayna dhahday, ninkaagii gabadheyda buu guursaday, arrintaadana anigu ii wakiishay oo waad furan tahay. Wixii markaa ka dambeeyey waxaan noqday naag la furay. Muddo aan dheerayn kadib, waxaa safar dheer ka yimid eeddo ninkeedii. Wuxuu ahaa gabyaa weyn. Waxaan ku dhahay, eeddo ninkeediiow, miyaad i guursanaysaa? Wuu oggolaaday. Markaas baan idhi, laakiin hal shardi baan wataa, waa inaan anigu xaaskaaga go'aan ka gaaro. Wuu iga aqbalay shardiga. Kadib eeddo baan u tegay, waxaana ku idhi, ninkaaga aniga buu i guursanayaa, arrintaadana aniguu ii wakiishay. Maanta laga bilaabo waad furan tahay. Kadib waan isguursanay eeddo ninkeedii. Iyadana waxay noqotay naag la furay, fadhi uma yaallo. Garsoorihii wuu istaagay markay dhegihiisu maqlayn arrintan masiibada ah, wuxuuna dhahay, Ilaahayow. Waxay ku tiri, fadhiiso, sheekadu hadday kow tahay. Muddo kadib waxaa dhintay ninkaygii gabyaaga ahaa. Kadib eeddaa ii timid iyadoo i weydiisanaysa dhaxalkii ninkayga, kaasoo iyada horay u furay. Waxaan ku dhahay, kani waa ninkayga, maxaa kaa galay adiga dhaxalka? Markaan dhammaystay muddadii ciddada, waxay iila timid eeddo inanteeda iyo odaygaygii koowaad, kaasoo i furay, gabadheedana aroosay, si uu arrinta dhaxalka inoogu kala gar qaado. Markuu i arkay wuxuu xasuustay maalmaheennii wacnaa, isagoo ii soo dabcay. Waxaan ku dhahay, mii soo ceshanaysaa? Haa buu yidhi. Waxaan ku dhahay, shardi baan wataa, waa inaan arrinta xaaskaaga aniga go'aan ka gaaraa. Wuu iga aqbalay. Kadib waxaan gabadhii eeddo dhashay ku dhahay, adigu waad furan tahay. Garsoore Abu Layla madaxa ayuu qabsaday, wuxuuna dhahay, aaway su'aashii? Eeddadii baa tiri, miyaysan xaaraam ahayn in aniga iyo gabadhayda nala furo oo gabadhan ay isku qaadata raggii iyo dhaxalkiiba? Wuxuu dhahay qaaligii, wallaahi wax dhiba uma arka arrintaas. Maxaa diidaya inuu ninku 2 mar guursado? Wuu furi karaa isagoo dariiqii ansaxa ahaa arrinta ku xallinaya. Markaa kadib qaaligii wuxuu u tegay nin wadaad ah oo arrinta la xalliya. Qisadii buu uga sheekeeyey. Aad buu u qoslay, wuxuuna dhahay, Ilaahay ha dila eeddadan cajuusta ah. Qofkii walaalkii god u qoda, isagaa ku dhacaya. Waa taabal arag iyadaa baddii ku dhacday. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. qisadan waxay waana u tahay kuwa badan oo dulmi iyo dhibaato la maagan dadka kale. Hashidin dab aakhirka adiga ku gubaya. Ha ku cibro qaataane muuqaalkan inoo sheer gareeya.